xanuunka maanta adduunyada lagu sheegayo ee COVID-19-ka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga ilaaliyo, muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo, caalamka oo dhan Allah ka qaado. Allahumma aamiin. Waa kan nabigeena inoo sheegay ee leh meesha daacun baa ka dhacay haddaad maqashaan ha gelina, meesha joogtaan hadduu daacun ka dhacana ha ka soo bixina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah walaalayaal, noloshan adduunyada wax daa'imaysa ma ahan. Waxaynu aragnaa maanta walaalkeen ama walaasheena oo la sii wadaa, meyd baynu ku tukannay, berina anaga waa naloo tukanayaa ogow. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan adduunkan dusheeda ku caabudaynaa, kuna adeecaynaa, kuna raalligelinaynaa. wixii Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo qadarayna raalli baynu ku noqonaynaa. maanta zamankan aan joogno, dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynaynin inay soo islaamayaan, qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, haddaad maqashaan meeshaas daacun baa ka dhacay ha gelina, meel ha joogtaan hadduu daacun ka dhacana ha ka bixina. dadkii zamankan culuumta maadiga yaqaanay waxay leeyihiin 1400 sano ka hor nabi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmayaa oo uu ku camal falayaa. mutacalimiinta Yurub ugu aqoonta badnaa axaadiistii nabigeena markii loo sheegay bay islaameen. xanuunka maanta adduunyada lagu sheegayo ee COVID-19-ka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga ilaaliyo, muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo, caalamka oo dhan Allah ka qaado. Allahumma aamiin. waa kan nabigeena inoo sheegay ee leh meesha daacun baa ka dhacay haddaad maqashaan ha gelina, meesha joogtaan hadduu daacun ka dhacana ha ka soo bixina buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. maanta waxaa la leeyahay farxalkii baa la leeyahay faraha iska dhaqa. mar walba haddii dadku u sheegayaan wasaaradaha caafimaadka, walaakiin hase ahaatee nabigeena sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii wuxuu ku yidhi, habeenkii markaad hurdada ka soo kacdaan waxa ugu horreeya aad qabataan ha noqdo gacmihiina dhaqda buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waayo xalay toole gacantiina meelay baraday kama warqabtaan. nin saxaabada la fadhiyey muslimiinta ka mid ahaa ayaa qalbiga ka yidhi, hadalka nebiguu iska yidhi un, waa nin baan ka warqabin gacantiisu meesha xalay ay baraday. ninkaasi hadalka ma inkarin, carabka kama inkarin, laakiin qalbiga ayuu ka yidhi, ma nin baan ka warqabin meeshay gacantiisu xalayto baraday. habeenkii markuu seexday, waagii markuu bariyey, ninkii oo qaylinaya ahaa la arkay oo cabaadaya. waa la dultagay, waxaa loo yimid isagoo gacantiisii duburka kula jira. markaasaa laga soo jiiday, markaasuu yidhi, walaalayaal haddaad maqashaan nebi maxamed baa sidaa yidhi, samicnaa wa adacnaa dhahada. nebigu wuxuu sheegayo waa run weeyaan. xanuunka maanta adduunyada lagu sheegayo ee aadka ugu faafay ee COVID-19-ka la yidhaahdo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga ilaaliyo, muslimiinta oo dhan alla subxaanahu wa tacaala ha ka ilaaliyo, caalamka oo dhanna Allah ka qaado. Allahumma aamiin.